waxaan kaala hadla horta marka koowaad annagu waxaan nahay dad macawisleey oo diyaar garoobay oo ugu talagalay inay iska dhiciyaan cadowga horta baadigooda oo meel walba taagan maanta dad yarna maahin oo afartan habeen cilaadaanteena iyo buunkeena iyo waardiyeena iyo socodkeena intaba waa taagnay waxaadba dawlad hirshabeellaha iyo wax dawlad dhaxaana midna hadda gacanna kama helin taakulayna kama helin gurmadna kama helin waxaan rabnaa marka horta dawladda hirshabeelle oo madaxweyne waare oo madaxweyne ka yahay dalka dadkiisii aysan amniga sugayn maamulna waa u nahay ay leeyihiin horta ma matelaan maamul ay dadka maamulaan ma matelaan dad maalin walba maxaas iyo halgan iyo beledweyne inta udhaxayda lagu qala oo shilalka fuula annagaa maamul u ah oo madaxweynaan ka ahay markuu maxamed cabdi waare ou leeyahay horta dad ma hayo dalna ma hayo dadkuna wuxuu u kala qaybsama hadduusan fadhiga ka kicin dad dhinta iyo dadkaas qalaa raaca horta waxaan rabaa marka dawladda hirshabeelle oo hadda ka talidaba gobolka hiiraan dadkeedii waa dadka la gumaadaa annaguna hadda hayagii talana kama haysano tigaalna kama haysano gurmadna kama hayno haddii ay dadkaas ay u yihiin dawlad ay shaatigay gashan yihiin u gashan yihiin dadka jooga gobolka hiiraan oo maamul sheeganaho ama amisom leh ama maamul soomaaliyeed leh ama kuwa dawlad dhaxa leh waxaan rabnaa horta inay fadhiga ka kacaan ay cadowgaas dadka wadooyinka u taagan oo gumaada ay gacan naga siiyaan annaguna waa u taagannahay habeen iyo leyl inaan toogaan sida u goobtama aan ula goobtano dagdagaan isugu nimaadna wixii ku bixi rabaa ku baxa waxa koosgareeyay aan kuu sheegayaa nimankaas al-shabaab annagu ma raadsan inaan safarno oo ilmihii daqdaqooyinka maraayo wadooyinkii loo istaago oo mid la dilo iyo mid la gato iyo mid maquuno laga dhigo la yidhaha kan ciddiisii ha loo diro keliya oo laga soo tuugtuugo keliya warku hadduu maraa hebel iyo hebel iyo heble iyo hebelna waa raadinayna ay ku taagan yihiin dagaalku ninku raadiyo waa la raadiyaa annagu waxaan diyaar garowna marka haddayba iyaguna soo raadiyeen ciddii ilaahay malakameedigu talagaa dhimanayso nafta ilaahayaa bixiya inaan annaguna raadino annagoon guryaha jeejeefin aan u diyaar garownay inaan iska dhicno nimanka horta ma garan annagu hadda waxaan taaganaha horta deegaanka hees orotan madhooy iyo qoomaadinta aagaasaan horta joognaa degmo ma joogne dad tuulooyin joogo oo reeduur aan ahayn reeduurkiina wadooyinkaan ilmaha masagada ugu doonanaynaa uga faka waayn horta ciidamada hadda sheegayso ama amisom leh ama guutooyin leh ama qaybta 720 leh oo hadda ku sugan waddanka aan joogno horta marka hore waxaan ka codsanaynaa cadowga hal cadabaan wada yeelanay inay cadowga gacan naga siiyaan tashiilaadna kama helin hadda ka hor ficil waxqabadna kama helin ciidanka soomaaliyeed ha noqdaano midka amisom ha noqdo wax gacanaan horta ka helnay ma jiraan annaguna ilaa asbuucan abaabul iyo caladhaan iyo waxaan ku jirnay hilibqal iyo raadintoodaan ku jirnay baraha ay ku nool yihiin iyo meelaha ay soo maraan iyo siday u dhaqmaayaan iyo waxay leegyihiin dad hayaga noogu dhex jira nooga sheekeeya oo hayaga xataa qaarkood ka mid yahay ilaaladeena iyo waardiyeena iyo sahankeena horta saasuu u taagan yahay dawladda dhaxa waxba kama helin midda hirshabeellena waxba kama helin amisomna waxba kama helin guutada qaybta 720 abaanduulkoodaan aragnay abaanduulku abaabul waa gelayaa laakiin gacantayda hadda gaar waxuguma jiraan uu yidhi laakiin waxa ballama inaan ama amisom la imaado ama soomaalinimo la imaado labada dhinacoon amidayla imaado ma garan horta anagu qofka bini aadam oo ilaahay hadduu ku tiirsan yahay horta qofka u baahan yaha male ilaahay subxaana watacaala an marka hore ku tiirsannahay marka kale dad la isu keenay waxaa ka qayr badan dad yaroo wada dhashay oo wada dhimanaa hadda ka horna nimankan dagaalkooda dadku waa soo maro waa yaqaan haddeerni ayadoo aan la baacsanayna annagana soo baacsadeen cid walba iyo tuulo walba in looga cararay keeneen marka annagu intaan annagu ka cararhayni
nin la soo tuubay oo laga keenay dal kale xaqaan ku dhimanaynaa xaqaynaanan ilaalinaynaa awooddaynana ilaahay xukumo waxaan awood ilaahay ahaynu ma sheega karaan marka wariya waxaan kuu sheega madaxweyne dowladda dhexe dalka waxaa ka ah maxamed cabdullaahi farmaajo iyo cali khayre labadaas nimaa maamulka furaha dalka dowladda dhexe laga weydiina ayaguna waxay u dhaarteen inay soomaaliya amnigeeda gudaha ay sugaan amisomood moodo in dalka xaraarsimo loogu soo diray ama dalxiis loogu soo diro silig iyo ciid isku wareejiday ma ahan dadkooda inay ku fiiriyaan horta ayaga waxaan ka codsanayaa dowladda dhexe amisom ama waxay dalka u timid dalka ha u qabato ama ayagaa codkii soomaaliyeed haystee naga guura ha yidhaahno soomaaliya waxay iska soo reebtaa laarta horta dowladda dhexe taasaan ka codsana wixii hadda dalka ay ku qaban kartane waa ay dadkeeda u geli kartane isha inay ku hayaan hadda waa ka hurdaana inay isha ku hayaan ayagay u taallaa aakhirana waxbaa la isweydiina ta kale dadku wuxuu leeyahay xildhibaanku marka dadkiisi la qalaa shaatiga uu gashan yahane ou dad shaaskiisa ay tahay haddii marka uu hoteel ku socdo $500 habeenkii dadkiisiina la gumaadaa harqaankii uu shaati ka tolo lahay dalka soomaaliya iyo adduunka midna ma yaalle xildhibaanada ka soo jeeda gobolkan dadkoodiina la gumaadaa iyo wasiirada iyo hadda madaxweynaha hirshabeelle annagu waxaan ka codsanaynaa shacabkii soomaaliyadaa nahay inay cadowga maalkii iyo naftii usoo dhigtay inay gacan libaax ka geystaan ayagoona wata annaga haddayna intaas awoodi waaydo waxaa imaanaa qaybtii isdhiibtanaya ilaahay wuxuu soo doonaa ka baxaa shacabka soomaaliyeedna cadow inuu raaco dowladda meel cadlaa soo roogsato annagu hadda waa taagannahay waxaan u taagannahay cadowga inaan iska dhicino waxaan u abaabulanahay inaan cadowga iska dhicino nafteenna iyo maalkeennaba aan ka helno dowladda hirshabeelle iyo dowladda dhexe iyo amisom gacan cadowga dilaayigaah oo noo taagan oo maalin walba shilalka dadka saara inay nagala geystaan si uu dalka ayaguna ugu nastaan annaguna aan ugu nasan